waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo ay finalka koobka qaramada qaaradda Yurub ay England la kulanto waana markii afraad oo Spain ay qaadayso koobka. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay eber iyo eber waxa uuna dhaliyay ciyaaryahan Nico Williams oo hoggaanka u dhiibay Spain daqiiqadihii nasashada waxaana u barbareeyay Cole Palmer. laakiin Spain oo kooda ugu fiicneed inta lagu guda jiro ayaa ku guuleysatay horyaalka markii Mikel Oyarzabal uu kubad cross ah u dhigay marka Kokolori iyadoo ay ciyaarta ka harsan tahay daqiiqado yar. Spain iyo Barcelona Lamine Yamal ayaa ku guuleystay Euro 2024. haddaba Argentina iyo xidigeedii hore ee Barcelona Lionel Messi ayaa isku dayay inuu sameeyo finalka koobka America markaas oo ay la ciyaarayeen Colombia ciyaar ku soo cidlaatay 1-0. Harry Kane waxa uu helay daqiiqadaha tartanka guuleystaha waxa uu ku hor yimid Slovakia rigoore uu ka dhaliyay Netherlands. laakiin tani ma ahayn tartanka uu ku jiro finalka dhaqdhaqaaqiisa waxa uu ahaa mid u shaqeeyay sidii uu ahaa tartanka oo dhan iyadoo difaacyada dhexe ee Spain ay awoodeen in ay si adag u cadaadiyaan oo aysan ka walwalin orodka gadaashiisa. markii uu qaatay kaarka jaalaha isla markaana uu ku dhibtoonayay sidii uu saaxiibadiisa uga heli lahaa ciyaartiisa waxaa jiray sababo uu maamulaha England Southgate ku sameeyay isbedel hore. waxay ahayd baaq weyn oo loogu talagalay Gareth Southgate inuu magacaabo Luke Shaw markii ugu horeysay. Shaw waxa uu lahaa hawl yar oo ah inuu ilaaliyo ciyaartoyga ugu orodka badan kubadda cagta Yurub Lamine Yamal kaasi oo tartanka ku shiday hanjabaadiisii hal-abuurineed iyo awoodiisa cajiibka ah. waxaa jiray kiis la sameeyay in Trippier laga yaabo inuu lahaado ugu dambeyntii wuxuu ahaa ikhtiyaar ka fiican habeenkii iyada oo Yamal ay u badan tahay inuu gudaha u galo lugta midig ee xagaagan Trippier. laakiin Shaw wuxuu ku bilowday si heer sare ah isagoo si weyn u aamusiyay dhalintii qaybtii hore. si kastaba ha ahaatee Yamal uma baahna fursado badan oo uu ku iqaabo